iyadoon laga shaqeyn hufnaan waa tan labaad iyo la dagaalanka musuqmaasuqa wax badan baa la xantaa anigu qofka runtii marka la igu sheego inuu musuqmaasuq yahay waa iga dhintay marka la igu sheego qofkaas inuu qabiil ka shaqeeyo waa qof maan gaaban aan developed ahayn qofkaasna bulsho uma adeegi karo haddii shaqo laga siinayo qabiilkiisa iyo dhaqameedkiisa la shaqeynayo ag fariisanayo taasaa u bannaan laakiin ummad intuu soo dhex fadhiisto oo soomaali oo dhan ah laguma hadleyn karo maxaa yeele caqligiisa aada u yar scoobkiisa maskaxdiisa aada u yar marka qofkaasi ummad looma dhiibi karo waxbana ma qaban karo maxaa yeele wax walba waxaa uga horeeya inuu qof aan mudnayn uu howlgashado wuxuuna ku howlgashanayaa waa bar garanaya qabiil horaan wax ku siiyo qofkan ma laha dibdhiska muxuu ka qaban karaa bilaacda muxuu ka qaban karaa dadka muxuu adeeg u geyn karaa shaqadiisa maaha qofkan waa bar garanaya waa isagaa mudan aqoon kuma fiirinayo karti kuma fiirinayo daacadnimo kuma fiirinayo marka qofkaasi waa qof caqligiisu aada u hooseeyo waxba looma dhiiban karo maxaa yeele systemkii o dhan iyuu ku cayaaraya qof musuq maasuq ka shaqeeyana ummad uma adeegi karo maxaa yeelay annaga waxbaan rabnaa inaan dhisno qofka musuq maasuq ka shaqeeya waxbuu rabaa inuu dumiyo wuxuuna u duminayaa dan isaga gaar ah uu leeyahay oo kooban oo maxay tahay guri dhiso war guriga xaggee ka dhisanaysaa haddee magaalada quruntay magaalada haddaysan amni lahayn oo qofkii amniga ka shaqeynaya mushaarkiisa aan la siin karin xaggee ka dhisanaysaa guri caruurtaada xaggee iskoolka aadaya haddii adu aada jeebka gashatay guri ku dhisatay macalinkii wixii la siin lahaa ama iskoolka loogu dhisi lahaa marka qofkaasna waa qof maan gaaban ummad uma adeegi karo waa qof dan shaksi ah ka shaqeeya in laga dhaqaajiyo waayo marka meesha maxaa yeelay systemkii yuu cadow ku yahay wuxuu rabaa 3 malyan oo magaaladan joogto inuu tirtiro yuu rabaa uu ka hadleeyo mustaqbalka iyo nolosha ka hadleeyo laakiin qofka inta loo dhiibay mas-uuliyad weyn xoolihii ummadda qaatay wuxuu dilay 3 malyan oo qof yuu dilay iyo 3 malyan oo caruura iyo mustaqbalkooda ka qaatay muxuu ka qaatay 4 caruur u dhalay isaga kaliya bas inuu guri u dhiso iyo wuxuu u laayay intaasoo milyan oo qof qofkaasna ummadda in laga qabto waa disease waa cancer in laga qabto in loo dulqaato maaha marka loo ogaado qofkaas haddii aan xiri karno aan xirno haddii in loo cayb asturo maaha shaqada laga qaado laakiin haddaan qaban karno aan qabanno hadduu qofkaas is og yahayna inuu iskaga tagaa roon shaqada intii la cebaysan lahaa guddoomiyena waa in la bilaabo waana bilaabi doonaa brogram ah qofka tuuga ah in dadka lagu ceebeeyo masawirkiisa idaacadaha in laga soo daayo leeyahay qofkan waa tuug ammaanadii loo dhiibo ku takrifalay trustigii dadku violate gareeyey ummaddana waa ka qabanay ma fahamti haddii la xukumana waqtigiis uu ku dhammaysto oo aanan la siinin maxaa yeele waa qof u soo jeestay inuu ummadda laayo ummadda burburiyo mustaqbalkoodana halleeyo marka yaanan loo naxariisan qofkaas taas waa tan labaad